bismillahi raxmaani raxiim. Golaha wada tashiga qaranka ayaa caawa oo ah 24 bisha Febraayo sanadka 2022 waxa uu kulan habka fogaan aragga ah ku yeeshay shir ay uga arrinsanayeen dhamaystirka doorashooyinka kuraasta dhiman ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya maadaama waqtigii hore loogu heshiiyey in lagu dhamaystiro doorashooyinku uu ku eg yahay 25 bisha Febraayo 2022 oo maalinta bari ah ku beegan. kulanka oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane injineer Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni, Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed, Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish. kulanka ayaa golaha wada tashiga qaranka waxa ay uga hadleen ajendayaal ay ka mid ahaayeen xaaladda doorashada, mudaynta soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka, xal u helista arrinta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey iyo xaaladda abaaraha ee ka taagan dalka. golaha ayaa bogaadiyey horumarka laga sameeyey habsami u socodka doorashada ilaa iyo hadda oo la soo doortay dhammaan 54 xubnood ee golaha aqalka sare iyo 175 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka, taas oo u dhiganta boqolkiiba 71 tirada guud ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ah ee Soomaaliya. golaha wada tashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaanin xilligii loo qorsheeyey ee 25 Febraayo 2022. golaha ayaa isla qiray in ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleedyada saameyn weyn ku yeelatay, xiisado amni oo ka soo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood, iyo culaysyo jiray oo la xiriiray dhanka dhaqaalaha loogu talagalay in lagu fuliyo doorashooyinka. haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan, golaha wada tashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda. 1. in doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15 bisha Maarso 2022. 2. goluhu waxa ay isla qaatay in ra'iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu u diro guddi soo qoymeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey, kaas oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka si ay uga soo tala bixiyaan habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ay ku qabsoomi karto. 3. goluhu waxa uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 30% ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ah ee Soomaaliya. 4. goluhu waxa uu walaac iyo qayladhaan ka muujiyey xaaladda ka sii daraysa ee abaarta dalka ka taagan, waxa uuna shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ka codsaday in la kordhiyo gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay. 5. goluhu waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga mahad celinayaa dulqaadka iyo sida uu u garab istaagay qabsoomidda doorashada. 6. goluhu waxa uu bogaadinayaa doorka iyo taageerada beesha caalamku ay la garab taagan yihiin dhamaystirka arrimaha doorashooyinka.